kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararka midnimo media qodobada aad ku daawad doontaan waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo qaabilay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo danjiraha boqortooyada Ingiriiska ra'iisul wasaare Kheyre oo la kulmay guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug hay'adaha ammaanka oo xiray wadooyin soo gala magaalada Muqdisho Puntland oo ka biyadiiday dalabka madaxweyne farmaajo ee ku aadan sii deynta halwadeeno xabsi loo tixaabay dowladda Qatar oo ballanqaad u sameysay maamulka koonfur galbeed Britain oo maraakiibteeda uga digtay marinka Hormuz iyo soo dhaweyn halyeynimo oo loo sameeyay xulka qaranka Algeria kadib markii ay la soo laabteen koobka qaramada Afrika ee 2019 daawadayaal intaa waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan oo idin akhriyo anigoo Axmed Xasan Ramaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa si wadajir ah u qaabilay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan iyo danjiraha boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Finder madaxweynaha ayaa kala hadlay wakiilka iyo danjiraha muhiimadda ay u leedahay dowladda federaalka Soomaaliya in lagu gacan siiyo dhamaystirka qorshaha dinacafinta Soomaaliya wuxuu sidoo kale kala hadlay madaxweynuhu diyaar garowga doorashooyinka 2020 iyo baahinta adeegyada asaasiga ah ee bulshada ciidamada ammaanka ayaa xiray wadada Kiss Control Afgooye ee duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho iyadoo wadadan ay muhiim u tahay isu socodka Muqdisho ilaa gobolada koonfur galbeed ee dalka sida ay sheegayaan wararka ciidamada ayaa dhagaxaan ku xiray wadada laamiga ee Kiss Control lama oga sababta loo xiray wadadaasi oo halbowle u ah isu socodka Muqdisho ilaa degmada Afgooye sidoo kalena ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka ah ee aada ilaa gobolada Baay Bakool Jubbooyinka ilaa Gedo xiritaanka wadooyinka ayaa ahnaan dowladda Soomaaliya u marto sugidda ammaanka iyo yareynta qaraxyada marmar ka dhaca magaalada Muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo la xiriiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa ka codsaday in si shuruud la'aan u sii daayo xubno ka tirsan guddiga dhismaha wadada bartamaha Boosaaso oo laamaha amniga Puntland ay khamiistii xabsiga dhigeen madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay aad ugu xun tahay xubnaha ka tirsan guddiga dhismaha wadada bartamaha magaalada Boosaaso ee khamiistii xabsiga la dhigay isagoo madaxweynaha dowladda Puntland ka codsaday in xubnahaasi la sii daayo sida ku xusan qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay si siman dadka u gaarsiinayso dhammaan mashaariicda horumarineed ee lagu jaangoonayo qorshayaasha heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee horumarinta iyo baahinta adeegyada asaasiga ah sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynuhu in dowladda federaalka Soomaaliya ay u taagan tahay ilaalinta mabaadi'da asaasiga u ah dowladnimada iyo xoojinta nidaamka federaalka ah ee ku dhisan wadatashi wadajir iyo qarannimo dhameystiran xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan Cismaan oo shir jiraayad ku qabtay caasimadda Garowe ayaa ka jawaabay dalab ka yimid madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka oo dalbanayay in la sii daayo xubno ka tirsanaa guddiga dhismaha wada dhexmarta magaalada Boosaaso xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in shakhsiyaadka ku jira xabsiyada magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso aysan ku xirneen amar madaxweyne iyo mid mas'uul kale toona balse ay u xiran yihiin buu yiri laamaha garsoorka Puntland isla markaana la marin doono hanaanka sharciga ah haddii wax lagu helo iyo haddii kalaba Cismaan ayaa sheegay in Puntland ay leedahay nidaam sharci iyo hay'ado garsoor oo qaabilsan go'aanka gaarista dadka ku aadeysan in ay sharciga ku xadgudbeen balse aysan jirin buu yiri cid kale oo sii deyn karta dadka garsoorka u xiran sida hadalku uu dhigay maraakiibta Britain ayaa looga digay in ay u dhawaadaan marinka Hormuz muddo ku meel gaar ah kadib markii markab saliida qaada oo Ingiriisku leeyahay ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka Iran afhayeen u hadashay dowladda Britain ayaa maanta sheegtay kadib markii ay kulan ay la yeesheen guddiga arrimaha degdega ah ee Cobra ee muujiyeen walaaca ay ka qabaan sida ay warka u dhigeen
ficilada aan la aqbali karin ee Iran isla markaasna ay ficiladeeda ka horjeedaan xurriyadda isku socodka ee caalamiga ah. Wasiirka arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt ayaa maanta sheegay inuu ka walacsan yahay in Iran ay qaaday talaabo qaldan markii ay qabsatay markab Ingiriisku uu leeyahay Jimcihii. Xulka qaranka kubadda cagta ee Algeria ayaa la kulmay soo dhaweyn halyeynimo oo aad u ballaaran markii ay ku laabteen dalkoodii hooyo kadib markii ay ku soo guuleysteen koobka qaramada qaaradda Afrika 2019. xulka qaranka Algeria ayaa markoodii labaad taariikhda ku guuleystay koobka qaramada Afrika kadib markii 1-0 ay ku garaaceen Senegal. waxa ayna hore u qaadeen koobkan tartanka sanadkii 1990. kumanaan taageerayaal Algerian ayaa u socdaalay garoonka diyaaradaha dalkaasi si ay u soo dhaweeyaan geesiyaashooda u soo hooyay koobka qaramada Afrika. qaar ka mid ah taageerayaasha Algeria ayaa xidigaha xulkooda ku sugayay safafka hore ee garoonka diyaaradaha halka kuwa kalena wadada ay soo mari lahaayeen ay safaf dhaadheer u galeen. markii xidigaha xulka qaranka Algeria ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha waxaa lagu soo qaaday baska weyn ee dusha ka furan si ay salaan uga qaataan taageerayaashooda faraha badan. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayna war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray aad kala socoteen Midnimo Media. waxaan warka idin la socodsiinaya anigoo Axmed Xasan Ramaas. tan iyo intaan dib u wada kulmi doona warkan kiisa xiga waa bahdii Midnimo Media oo idinku dhaafaysa sida iyo nabadgelyo.